markaan waxbarashada ka waramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood baa loo qaybiyaa. waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog uga warramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax dhaba ku darsanin. سأوجد واحد ربعنا أنت الماما وحبرشات وخطرت دي واحد لورد جاوه حيي يعني نتيجة البرودكت كيسوس أرتسين واركرنا علوم تبين هذين دوني دتالله وصدح غيبوت غيب ولا كلا قرصدا ليس منسيو سينا بالله يسقونا أقولادو بس السينما الدوني ده هو يناي ذا كدعلا غيبنا والله يسقو قصبا سنكال يسكجليا والله يسسيا ولا مال قليا قفك برريا قيبنا والله كلا قطابي هذا waxbarashada الدنيا تطلع بينه وصدق راقبه قيبت كواد يعني سنة بالله يسوسين وحنا وعلوم السيادة وعلوم كانت توضن إنه دقالات الدنيا أما هجامية أما حوج الدنيا هجامية أما وحن هجامية وعلوم كصابسن بيننا مثلا نكلير ويبني يوحي كصابسن لا يسمى أقولا عندي حرق ذا حق هذا السؤال اقتنع هدي لا تومي كروي لا توبا وعلوم كصابسن علم الفضاء عرق يوحن لا درا يوحي كصابسن وعلوم كصابسن هو كوردن يتكنولوجيا كصابسن وعلوم كصابسن كور ايديها إليه شركات كواوين الدنيا كتيرة شركاتنا ما بيحسوا كور ايديها مثلا كوكا كولا بقول يا دور سنة ضد هذا السكرتي وإليه المركز الدنيا ده لبقى فوق حتى وحا ماشي كتيرنا ما بيكون غرسون طيب بنك بيطلع لا ينيرو قرا الله شيء وحا صار سوق قلده that's all اتكلموا بما شرتوا بقول يا دور سنة ضد هذا مريسا إذن أقومها نقارها أبوره حوق أبوره تلسك أبوره وها أبوره ليش مسيو waxay dhahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badan la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihiin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaana ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxa ku saabsan aqoonta ayada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybta wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture tahay hadday values tahay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kastoo aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb cultureka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imka western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaarta reer galbeedku rumaysan yihiin ama LBGT dhe ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe wuxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politiska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun iyo waa san iyo kaasna iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu u noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynaya taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ayuu noqon lahayd kaana shakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan
cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihin inay ilaaliso oo dadka la baro. qaybna bay yidhaahdaan cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada, dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kalaynu sheegno, idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan. jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay? waa kuu banaantay. therefore iyada waa la kala gataa. professorkana waad gadan kartaa, jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa, waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka. idan waxay dhahan tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood. waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto, qayb saka layska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto, iyo qayb mushtarak bini aadamku u yahay oo cid waliba ay gaday.